بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiimaha kale ah what is a bond and a bond holder. inta aanan loo gudbin sharaxaada boonka aan isla fahanno ereyada ku jira qeexidda oo kale ah issuer ama debtor waa dadka deynta soo saara ama raba inay lacag deynsadaan ayaa loo yaqaanaa, halka creditor ama bond holder ay yihiin dadka maalgashta deynta. marka xigta aan isla ogaano qeexidda boonka. badi waa deyn leh damaanad oo ay soo saaraan shirkadaha iyo dowladaha. deyntana waxaa iibsada ama maalgashta shakhsiyaad, ganacsato iyo dowlado. lacagta deyntana waxaa lagu bixinayaa muddo cayiman. haddaan si kale u qeexno, boon waa deyn ay qaataan ama ay soo saaraan shirkado ama dowlado si ay ugu ballaariyaan mashaariicdooda ama ugu bilaabaan mashaariic cusub. qaybta labaad waa inaan wax ka ogaano micnaha bond holder. waa dadka iibsada ama maalgashta deynta ay soo saareen shirkadaha ayaa waxaa loo yaqaanaa bond holder. waa dadka maalgashiga sameeyaan. fiiro gooniya, soo saaridda boonka waa qaab looga faa'iidaysan karo lacagta dheeraadka ah oo ay haystaan dadka maalgashiga sameynaya, waana qaab la iskugu keeno surplus unit iyo deficit unit. waxa ay yihiin ka dhegayso lifaaqa hoose oo aan hadda ka hor ku sharaxnay. mahadsanidin, waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.